الرحمن الرحيم. الثاني شرط قلبات طهارة ويسقاد بالوضوء ويسقاد طهارة طهارة قادة شوي بالوضوء لغو طهارة قاد ويسو والغسل إيا قبيس شرط قلبات وحوك الله وحلق مقعابه طهارة قادة شو بالوضوء ويسا لغو طهارة قاته إيا والغسل قبيس qofkii markii uu nijaasad ay weysadii ka burto markii ka burto ama ha uga burto maxaa la dhahaa bowl ama qaa'id saxaro ama kaadi ama muxuu ahaa qof ajnabi ah oo la kulmay oo taabtay waxyaas markii weysadii uga burto inuu dahaaro qaato ayaa la rabaa bil wuduu'i oo ku dahaaro qaato wal qusli qabays oo ku dahaaro qaato di waajibaadka qabayska waxyaabaha waajibiye isaga noo keenayay ay ku qumaan فأما الوضوء ويسقات كيف فروضه فرضياشي سي واجبات كيس 6 لحوي واجباتك وحلقو أوليها ويسقاتكو واللح ويسيدا وحا واجبي لح شيبا واجبيس الأول متك كوبات نية الطهارة طهارة قادش إلا نية يستوي للصلاة صلاة لون طهارة قادنا أو رفع الحدث أما حدث كورياليستيس أو نحوهما أما وحي لمدة بالقلب قلبك لغن يستو قرمه مع أول غسل الوجه وجهك لقد ديس أول كيس فرد ككوبات والنية إلا نيستيد صلاة دي إنات الظهارة قاعدة نيست هذا نيسان أو بيها أتسكو باللوديد أظن وحبا نيسانين وحي لمتهي أظن ويسا قاعدة لمتها أظن إسلقضي وحبا كما دوان haddii qofku uu ka tago niyada wajiga markuu biyaha saaro haduu ka tago uusan niyeysanin inuu weyse qaadanayo ma weyse qaadan qofkaas maxaa la waayay faradkii koobaad ama waajibkii koobaad meesha ka baxa soo niyadu waxay kala saaraysaa cibaadada iyo caadada in la isdhaqo waa caado oo qofka uu isdhaqaa laakiin in la niyeystaahi waa cibaado ويسقاتك إن نيستو عبادة taas ayay waxa kala saaraysa marka niyadii kala saaraysa hadii niyadii meesha ka baxdo oo san qofku niyeysanin wajiga markuu dhaqayo agteedaba weysaqaad uma jiro dib uu ugu laabanaya dib uu weysa qaadanaya illa waa dhaqdhaqday alawwalu midka koobaad niyatu tahaarati dahaara in la niyeysto weyla salaad loo dahaara qaato oo rafcil hadath koryeelistiisa la niyeysto way aw naxwihima ama labada wixii lamida بالقلب لابتنا لغني يستو مع أول غسل الوجه وجه ما يرستي سأكتدنا لغني يستو الثاني متكلبات غسل الوجه وجه لدقوي من مبدأ مال مكانه بلاو كواي من مبدأ تصديح الجبهة وجه فتسان كيس بلاويس meesha wajigu uu ka fidsan yahay meesha wajigu uu ka soo fidsamo oo kore laga soo bilaabo ilaa muntaha dhaqni ilaa lafgarta laga gaarayo wa min al-udhuni dhagta laga bilaabo midig ila al-udhuni dhagta kale ee bidixda laga gaarayo ilaa baatini lixyati ar-rajuli ninka garkaas baatinkiisa ama gudihiisa wa aaridayhi iyo labadiisa hareed عارضينك الكثيفين أبل ووينا قضب كلبات حليها وجهي إن لا دقوي وجه انت لا دها مرك وجه انتو كبلابنا يا حقوق وجه من مبدأ لغا بلابا تصديح الجبهة وجهك فيتسانانت وجهك لغا بلابا إلى منتهى الذغني لغو دماادو لفقرت منتهى إن تكون دماتي الذغني لفقرت wajiga dhirirkiisa marka la fiiriyo barta kore ee tintu ay ka soo bilaabanayso ka soo bilaw ilaa hoos lafgarta aad soo gaaraysid wa min al-udhuni dhag laga bilaabo ila al-udhuni ila dhagta kale la gaaray illa baatini marka laga reebo baatini gudaha lixyati ar-rajuli ninka garkiisa gudihiisa marka laga reebo iyo وعارضيه لبدي سهرت الكثيفين بالبلار
wuxuu leeyahay wejiga waxaa laga bilaabayaa farta u koreysa oo tinta iyo wejigu iska galaan ilaa laga gaarayo lafgarta dhag laga bilaabo ilaa dhagta kale laga gaarayo. taas marka xadka uu sameeyay wejiga soodintiisu intaas way. maxaa soo haray? wuxuu ka soo reebay haddii ninku uu leeyahay gar weyn iyo hareedyo waaweyn iyaga gudaha inuu u geliyo waajib miya? maya, waajib ma ah, sunnay ku tahay. laakiin inuu takhliil sameeyo, inuu gacmihii dhex gelgeliyo garkii waa sunno. hareedkii sidoo kale inuu biyihii dhex gelgeliyo waa sunno, oo labadaasba waa loo sunnaynayaa. faqsiluu wujuhakum aayadiina waa tayd markii la tilmaamay idaa qumtu ila salaati faqsiluu wujuhakum. الثالث midka saddexaad qaslul yadayni labadii gacmood oo la dhaqo way macal mirfaqayna ilaa labada xusul laga gaaray. labadii gacmood aad dhaqaysa ilaa xusullada. inta waajibkaahi waa inta xusulku uu ku egyahay. laakiin maxaa la rabaa xusulka inaad wax ku dartid si aadan qaybtii waajibkeed wax uga tagin. ilaa garabka ku dhawaadkiisa hadaa geysatid hadhoweyto waxaa kuu dheeraanaya waxa loo yaqaano xibna garaynta. dadka muslimiinta ah ee weyse qaata markay aakhira tagaan intii ay ka weyse qaadanayaan ayaa iftiin ilaahay u siinaya maalintaas mugdiga ah. ayaga waxay shidanayaan lugahooda, gacmahooda, wajiyadooda ayaa iftiin ilaahay u saaraya. quran muxajaliina wajiga iyagoo bariir kula imaanayaan, xibnahana garan oo xibnahooda ay iftiimayaan. marka iftiinkiisi oo kuugu kordho mirfaqaynka waajibkii waaye dhaafi. qaslul yadayni labadii gacmood dhaqideeda way macal mirfaqayni ilaa labada xusul. الرابع midka afraad masxu aqalli shay'in shay kan ugu yar masaxidiisa way oo min basharati ra's madaxa jirkiisa kamid ah aw min sha'rihi ama tintiisa kamid ah. haddii madaxu uu tima la'aan yahay meel kamida jirkiisa inaad biyaha marisid ayaa kaa kaafinaysa, ama min sha'rihi ama tintiisa meel yar oo kamid ah inaad marisid ayaa kaa kaafinaysa. masxu aqalli shay'in shay kan ugu yar masaxidiisa way oo min basharati ra'si madaxa aan tinta lahayn jirkiisii ah aw min sha'rihi ama tintiisa ah. madaxii jirkiisii ama timihiisii labadaas mid kamid ah in aad marisid. idaa lam yakhruj hadduusan ka baxaynin almamsuuxu minhu midka la masaxayo bilmadi jiidis min xaddi ra'si madaxa xadkiisa hadduusan ka baxaynin. wuxuu kusii qaydaa sheekhani wuxuu leeyahay kan tinta aad masaxaysid haddii qof shalabla u yahay oo tintiisu ay dheer tahay midda madaxa ku dhagana la rabaa inuu masaxo. midda madaxii xuduudiisa soo dhaaftay oo dhagtii gaartay ama ka hoos martayba kaas ma masaxaya, wuxuu masaxaya midda u dhow jirka ku dhagan buu masaxaya. idaa lam yakhruj hadduusan ka bixin almamsuuxu midka la masaxayo oo minhu tintii kamid ah bilmadi jiidis can xaddi ra'si madaxa xadkiisa ama soodintiisa hadduusan ka bixin. wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum ila alkacbayni oo arjulakum ila alkacbayni. marka taas waxay tilmaamaysaa in la rabo madaxii in la masaxo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muqiira bin shucba oo warinayay ayaa ahaa inuu nabigu masaxay inuu markuu weyse qaadanayo inuu masixi jiray foodiisa inuu masixi jiray ayuu tilmaamaya xadiidkaas. alkhaamisu kan shanaad qaslul rijlayni labadii gacmood qaslul rijlayni labadii lugood dhaqidooda way macal kacbayni ilaa anqawyada. iyagana intee waajibaysa lugaha marka la dhaqayo ilaa anqawyada. anqawga wixii ka koreeya inaad dhaqdid waajibkii ma ah, laakiin waajibkii in uu ku dhamaystirayo anqawga dhaafi ilaa muxuu ahaa waxaa gaarsiisaa odayka oyista gaarsii oo kor u mar, ama kasii badiyo ilaa muxuu ahaa shanshada sii gaarsii jilibka ku dhawaadkiisa halkaa gaarsii si xibna garayntii aad u hesho. waxaa la rabaa in isna qofkii inuu dhaqo lugihii inuu dhaqo. waarjulakum ila alkacbayni aayaddu waqti ahayd taasaa tusinaysa. السادس midka lixaad tartiibuhu kala dhigdhigidiisa way kama dakarna sidaan usoo sheegnay sidaas inuu usoo kala hormariyo way
tartiibuhu kala dhigdhigidiisa kala hormarintiisa kamaa dakarnaahu sida aan u soo sheegnay weysaqaadka waajibaadkiisa inuu sidaas u dhaqo way xogaa yar uu kuu sheegaa marka wayajibu waxaa waajibaya fil waji wajiga iyo wal yadayni gacmaha iyo war rijlayni lugaha qaslu juz'in qayb dhaqideeda oo fawqa ka sareysa xuduudeeda iyo sohdinteeda wajigii hal dhaqa baan niri waxaan ka bilownay meesha u koreysa oo tintay wajigu iska galaan ilaa lafgarta dhagta ilaa dhagta kale intaas markii lagu tilmaamay xuduudaas lagu gooyay wax yar ku dar ilaa iyagii haddaad ka soo laabatid waxaa dhici karta xubin wajigii ka mid ah inaad dhaaftid si aadan marka waajib uga tagin wixii kaloo ku dhagan waajibkaasi waajibay noqonayaan maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun ayay ahayd qaacidada usuuliga ah ama asliga maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun shayga waajibka in la dhammaystiro waajibkii uusan dhammaystirmayn ilaa isaga in la sameeyo mahane isna waajibuu noqonaya anqawga waxaa la yidhi muxuuha mirfaqaynka labadii gacmood ha lagu ekeeyo mirfaqaynka haddii wax laga tago waajibkii kuuma dhammaystirma si waajibkii kugu dhammaystirma dhaaf mirfaqaynka dhaaf kacbaynka ku ekeeya baa lugaha fooqa xuduudiha dhaaf oo meesha lagu xadeeyo la tilmaamay kabadi warku waa intaas wayajibu waxaa waajibaya fil waji wajiga iyo wal yadayn labada gacmood iyo rijlayni qaslu juz'in qayb in la dhaqo oo fawqa xuduudiha xuduudeedaas ka koreysa min jamiicil jawaanib dhinacyada dhamaantood min jamiicil jawaanib dhammaan dhinacyada iska fiiri midaana waa la rabaa wa an yajriya almaa'u biyihi waa inay dareersadaan bitabcihi dabcigiisa calaa jamiicil ajzaa'i jirka qaybihiisoo dhan maxay tilmaamaysaa aayadan muxuu ahaa qaybtani waxay tilmaamaysaa in lagaa rabo biyaha marka aad ku weyse qaadanaysid xubintii oo weli wasaq leh inaad inta wasaqdii kaagicisid biyihii oo weli calow ah aad ka sii gudubto xubintii saddexdii jeer haddaysan ku dhaqmaynin lugtoo kale iyada 3 jeer u baahan in la wada dhaqaa la rabaa laakiin gacmihii markii la fiiriyo iyo wejigii 3 ay leeyihiin meesha ugu badan 3 inaadan iyadoo wasaq ku taalo jirka inaadan horta weyse bilaabin wasaqda marka hore soo nadiif kadib markaas weysaqaadkaaga bilaab wa an yajriya almaa'u bihi wa inay dureersadaan bitabcihi dabeecadiisa sidii biyihi nadiif ah xubinta markaa dhaqaysid biyihii oo nadiif waa inay ka socdaan calaa jamiici ajzaa'iha dhammaan xubnaha weysaqaadkoo dhan waa inuu qofku sadaa biyihii dhadhankoodii iyo midabkoodii iyo urtoodii wax kastoo zuulinaya oo bedelaya waa inuu baabi'iyaa marka hore weysaqaadki waa garanay furuuda uu leeyahay 6daas waajib uu leeyahay maxaa weysadii markaan weyse qaato maxaa iga buri kara wayubdiluhu weysaqaadka waxaa burinaya kullu maa shay dhammaantiis kharaja ka soo baxa min alqubri xagga hore waduburi xagga dambe caynan shay muuqda oo la arkayo caynan markii la yidhaahdo shay muuqda waxaa soo gelaya kaadidii iyo saxaradii aa soo gelaya wa riixan ur ah oo aan muuqan shay muxuu aha riixa imaata iyo walamsuhumaa qodobka koobaad wuxuu yahay kullu maa kharaja wax kastoo ka soo baxa min alqubli xagga hore waduburi dabada ka soo baxa caynan shay muuqdoo la arkayo kalqaa'id walbowl sida saxaradii iyo kaadidii way muuqdaan aw jaa axadun minkum min alqaa'id ayaddu waqti ahayd midkiin haddii uu tago saxara hadday ka imaato madidii waa la mid madida waa la mid ilaa muxuu ahaa madida waxaa la yidhaahdaa biir oo qofka ka imaada markii uu wax ishtiheeyo ragga iyo dumarkaba marka wax ishtiheeyo biyo imaanaya xubinta hore ka imaanaya ayaa madi la yidhaahdaa madidaasi iyada nijaaso waa sida kaadidii oo kale inuu iska dhaqo waa marada hadday gaarto wuu dhaqaya iyada qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam cali oo ku yiri madaa ayuu ahaa siduu sheegay isagu in madi badan buu ahaa markaasuu wuxuu yiri wuu dhaqayaa qofoo u soo diray weliba isagu ma uusan weydiinin nabiga ila gabadhiisii ku xishoonayaan
yaqsilu dakarahu dakarkiisa dhaqayaa dhaawaya tawada uuna weysa qaadanaya marka maxay tusinay hadii shayga la dhaqayo inuu nijaas yahay ha dhaqo hadii la yiri madidi waa nijaaso xaq hore ka iimaanay aynan ahaya wariixan ama riix ahaya nabiga alayhi salatu wasalaam qowlkiisa ay u daliilo la yaqbalu Allahu salata ahadikum ahadkiin salaadiisa ilaahay ma aqbalayo ida ahdatha hadu hadatho oo ay ka timaado muxuu ahaa xadadka meeshan waxa lagu wadaa nin oo reer Xadramud ayaa wuxuu yiri mal xadathu xad ya Aba Hurayra xadadka maxaa ka wadaa qaala markaas wuxuu yiri fusaa'un aw duratun waa muxuu ahaa dhuusawa hadii qofka ay ka timaado neefi haday ka timaado neeftaas timid weysaqaadku way burinaysaa walamsuhuma labadoodii in la taabto labadoodii hadii la taabtana weysadii way bure laakiin maxaa shardi ah bi butuni raahati ala asha baadinkeeda ala asha cad ayaad ku taabatay dhabarka ala asha ma ala asha gudaheeda ayaad ku taabatay xubnahaagii baa taabatay ama xag hore noqoto ama xag dambe ala asha baadinkeeda hadaa ku taabatid weysadii way ka buraysaa ama waxaad ku taabatay aw butuni al-asaabi'i faraha dhinacooda hoose faraha cad qaybta hoose cad ayaad ku taabatay dhinaca dhabarka amaya min nafsi isaga tiisu taabtay naftiisu taabtay aw غيره ama mid qofan isaga ahayn buu taabtay walow li waladihi sagiir cunugiisa yarka aba Allah ka dhigay cunug yar baad soo qabatay aad soo qabanaysaa waa taabatay weysadii way ka buraysaa qodobka labaad ee weysadu ay ku burayso wuxuu yahay waa taabashada inaad taabatid xubnahaaga cawrada inaad ku taabatid calaa cashacad iyo faraha meeshooda cad naftaada ka taabo ama qof kale ka taabo weysadii way ka buraysaa wa talaaqi kulmida basharatay dhakarin iyo untha naag ama lab iyo dhadig inay istaabtaan jirkooda wa talaaqi kulmida inay kulmaan basharatay jirki inuu kulmo jirkaas inuu istaabto on biduni haila waxba aysan u dhaxayn bila haila wa talaaqi kulmida basharatay dhakarin labki wa untha iyo dhadigii oo balaqa gaareen xadda shahwati shahwa xadkeeda gaareen balaqa xadda shahwati wuxuu shardigaas ugu qaydaa cunugta yar ama cunuga yar ma aha meel shahwa ma ah cunugu haduu san qaan gaarin gabadhu haday san qaan gaarin madinatu shahwa ma ah marka balaqa xadda shahwa qof qaan gaar ah labadoodaas oo qaan gaar ah istaabto haddana labada qaan gaarka maxaa shardi u sii ah laysa baynahuma dhexdooda aysan ahaanin mahramiyatun hurmo xaraanimo aysan dhexoolin inaysan isguursan karin laysa baynahuma dhexdoodana aysan ahayn mahramiya wax kala xarima aysan jirin wax kala xarimaya aysan jirin maxaa kala xarimi kara saddex shay kala xarimi karta binasabin dhalasho way isla dhasheen ama way isdhaleen nasab dartiis waa isku abtiris aw radaa'in ama nuugmo way isnuujiyeen wiilka iyo hooyadii nuujisay ama walaashii la nuugtay ama walaalkii la nuugay wayse ka burin maayo iskama burinayaan aw musaharatin ama xididnimo waxaa ka dhaxeeya labadan qof xididnimo ka dhaxaysa wiilkani haweeneydan wuxuu qabaa gabadheedu qabaa ama ninkani wuxuu qabaa gabadhan hooyadeed buu qabaa iyo wixii la mid ah musaharadu waa noocaas xididnimo guura isku keenay guur hadduu isku keeno musahara la yiraahdaa xididnimo waa maxaa shardi ayadana bilaa xaailin haddana ah dadkaas kale ajnabiga ah oo bilaa xaailin dhar uusan u dhaxaynin wax kala teedaya uusan jirin jirkoodii oo muuqda ayaa muxuu ahaa weysadii buranay qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa saddexaad nin iyo naag markay kulmaan sida madhabka Shaaficiga uu ku xoog badan yahay oo yahay jirka ninka iyo naagta markay kulmaan oo xaddu shahwa qaangaar noqdeen oo aysan u dhaxaynin wax kala xarimaya
ama ha ku timaado abtiris ama ha ku timaado nugmo ama ha ku timaado xididnimo oo haddana teed la'aana weysadaasi way burto haddii waxay u soo daliishanayaan imaam shaafici qowlkii muxuu ahaa ilaahay uu yiri aw laamastum nisaa haweenka aad taabataan taabashadaasi aayadda ku jirta wuxuu ku fasiray Cabdullah ibn Umar allamsu bil yadi gacan in lagu taabto imaam shaafici iyo imaam malik sida ay qabaan waa lamsiga luqada markii la yiraahdo waa taabashada muxuu ahaa gacanta xaqiiqa ahaan markii la yiraahdo wallamsu fi lughati xaqiiqatan huwa lamsu bil yadi ayuu imaam shaafici lamsiga luqad ahaan markii la aado waxaa laga wadaa sida dhabta ah in gacanta lagu taabto aayad quraan ayaaba tilmaamaysa oo qariina ah falamasuhu way taabteen biaydihim gacmahooda ku taabteen falamasuhu biaydihim majazan sida majaaska ahna waxa lagu mararka qaar loo soo qaataa oo sarbeeb ahaan waxa loo isticmaalaa mararka qaar jimaaca ama kulanka ninka iyo naagtan waa loo isticmaalaa laakiin xaqiiqatan markii la yiraahdo waa lamsiga gacanta marka quraanku muxuu u badan yahay inuu ka hadlayo lamastumun nisaa naagii atil taabataan way marka ninka waxyaabaha oo labadan qof kala xaaraantinimay kara inay wada dhashaan inay isla nuugaan nasabka wixii ku xaraama inta nasabka kaaga xaraamta oo kale ayaa ridaaca ama nuugmada ku xaraama walow Soomaalidu aysan isnuujinba nuujinta uma badan musaahara xididtinimada waxyaabaha ka imaanaya waa haweeneyda la qabo wixii ku soo dukaalaya dad ku xaaraantinimay bay ay jir teelaan inay haato shardi waa qodobka afraad wuxuu yahay wazawaalu aqliga zuula garaadki inuu baxo garaadka muxuu ku bixi karaa garaadka wuxuu ku bixi karaa qofkaani inuu seexdo markuu seexdo garaadkiisii macnaha maskaxdii way bixeen maskaxdu markay baxdana waxaa furmaya meel kastoo xirminadu way furmay haddii idaa naamat alcaynaani in xalla wakaa'u sahi aw kama qaala calayhi salaam haddii labada indhood ay hurdaan waxaa furmaya xarigii dabada uu furmaya qofku ma ogaan karo marka in wax ka imaadeen inaan waxba ka imaanin ma ogaan karo ilaa man naama shardigaana marka ka soo reebe aqligii yaa zuulay macnaheedu waa seexday waa qofkan uu hurday ilaa man naama qofkii hurday maahana ama majnuun waaliba ku zuulay aqliga waa waasho qofka haduu waasho weysidii way ka bur ilaa man naama qofkii hurday maahana qaacidan isagoo fadhiya mumakkinan hadana makaniyay xalqata duburihi dabadiisa wareegeeda iyo wama xawlaha iyo wixii hareeraheeda dhulka si fiican u dhigay qof labada lugood markuu isdhaafsado oo si fiican dabada ugu fariisto qofka noocaas haduu ku hurdo weysidii ka buri mayso haduu caawo dhan hurdaayo 3 saac habeenimo camalow saas u fariisto wuxuu ka kacay 12 markii salaada la dukanay salaadiisi uu dukanaya weysidii kama aysan burin ilaa man ruux mahana naama hurday qaacidan isagoo fadhiya mumakkinan makaniyay xalqata duburihi dabadiisa wareegeeda iyo ma xawlaha wixii hareeraheeda waa mal qosol halkaas noo joogo wallahu subhanahu wa ta'ala amba qadka geediga sida urta loo raro heesa u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebahe iyo adin iyo afwada jira